dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa subaxnimadii hore saaka waxay olole wada badnayn in nadiifina ka bilowday caasimadda Hargeysa qayb ka mid ah waxaana ololahaasi lagu beegsanayay meheradaha wajahadaha hore ku leh meheradaha aan loo baahnayn ee wadooyinka soo galay iyo sidoo kale waxyaabaha bilixumada ku caasimadda maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cadiid Solteko ay wehelin xubno ka mid ah golaha deegaanka caasimadda oo halka hawlgalkan ka socday warbaahinta kula hadlay ayaa faahfaahiyay ujeedada hawlgalkan ay sameynayaan iyo sidoo kale waxyaabaha ay dimacsan yihiin caasimadda ka hirgeliyaan waxa maanta sida aad ka arkaysaanba halkan ka socda olole lagu nadiifinayo maaha kaliya in bilic kaliya la eegayo waxa maanta la socota in caafimaadkii la ilaalinayo goobii la isugu tagay ama meelihii lagu qayliyay xagga dambe la fadhiisanayay ama maqaayadihii hygiene-koodu aad u hooseeyay arrimahaas oo dhan in laga hawlgalay waana wajigii labaad weeye waji hore aan sameynay oo wadada dheera iyo suuqa dhexe ah wajigii labaad baan wadnaa waana soconaysaa oo Britolna waxa la gali doonaa June saadamana Koodbuur iyo Britol June iyo Koodbuur baa la gali Axmed Dhagax iyo waxa ku xigi doona 12 May Maxamuud Haybi waxa ku xigi doona Maxamed Mooge waa la soconay qof walba alaabadiisa hasi furfurto wadada waa gidaar to gidaar labada gidaar baa isu muuqanaya labada gidaar wuxuu u dhaxeeyaa ka qaataan waxooda hadhow toolayaan la oran magaranayay nalama ogeysiin ilaa xalay wacyigelin baa socotay ilaa shalay wacyigelin baa socotay TV-ga iyo radio-ga iyo meel walba ka socotay wixii halka loogu yimaado waxa weey gawaaridan saarayna waananu ka qaadaynaa waqtina looma hayo 300 oo shaqaalaha ayaa ku jira 100 askari baa ku jira waxa soo shaqaalaha inta la soo kiciyo buul ka tagi mayno iyo meel sandaaqadii ka taagan tahay saas uu bilaabmay buu u soconaya ka hortag baynu sameeynaa itaal kale ma hayno ilaahay naga nabad geliyo waxaan cudurka la sheegayo laakiin waynu ka hortag sameeynaa ka hortaguna waxa weeyaan inaga oo kala durugna oo meheradahan lagu qaylaayo ee kolba 20 ay meel wada fadhiisanayso ee aanad ogeyn inuu qofkan wixii qabayeen kale ee degdegna u fidaya baynu ka dadaalina marka ilaa shalayta wacyigelintaas socotay dadweynuhu aynu qaatay u maqlaa haddaad ka maarmoodo kaliya dad iska qayl gurigaaga oo ka tag meesha laakiin haddii halkan la isugu yimaado aqbali mayno meheradahaas oo dhan waa la baabiinayaa furfuro intaan cagafta ku soo gaadhin ilaa shalay waa lagu sheegayay ilaahay baa ina yidhi maxaan ku taxadira quraanjo ayuu la hadlay quraanjaa tiri udkhulu masaakanakum laa yaxdumanaka saleebaan wa junuudahu wahum laa yashcuruun quraanjo ee qalladiina gala saleebaan iyo jundigiisa idin jiirine waar karoolu idin jiirina gala guryihiin iyo aqalladiina ku soo qayla oo ka baxa waa wareegii labaad ee ololaha wareegga labaad oo ah in nadaafadii magaalada iyo dadkii la kala fogeeyo saaka halka waxaan ugu nimid 6dii qaadkii xalay say u cunayeen fadhiya maqaayado 10 u fadhiya ninka halka ka hadlay waxaan leeyahay meel sharciye lama duminayo meelii bila sharci darada ay dhan baa la duminaya waxaana la banaynaya waxa weeye meelihii la isku yiman jiray haday maqaayad tahay khalad oo wada laga dhistay hadii kale kuwa rasmiga ee dhismahooga ku jirana waxa la sameeynaya in dadku kala fogaadaan maqaayad shaah lama ogola automatically maqaayad shaah lama ogola hudheelada cuntadana intaad wax ka cunto ka tag caafimaadkaaga laga talinaya ma aha adiga wax laga doonayo waa bal wax lagu leeyahay naftaada ilaaliyo baalkii xanuunkii wuxuu noqday COVID-19kii wuxuu noqday baytil qasiidkiisii halkii laga qaadayay meesha dadku isugu yimaadaan haddii aanu lahayn inuu soo gaadhin waa kiisa shalay toole 2 kiis baa la cadeeyay boorama hal kiis baa la cadeeyay horena 2 magaalo kala burburiyo buuca loo cadeeyay waa uu kula joogaaye ilaahay hay naga nabad geliye iska daaya muxuu ahaa hadalka adag iyo waxa loo sameeyo waxa loo shaqeynaya waa caafimaadkaaga iyo nabadgelyadaada qof walowba sidaas u dhowr lahayd u samee